في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى مهدا ما أنت دسكله وأي نسوي ديان برشة المساجد كقيب كمدا يضدك براها برشة رنتي كجحدا مساجد كي شيخة سؤالها يا ننتوس إن شاء الله تعالى وجود جل دونا سؤال شو جوه الرئيسة وحصاق قري ولال دبد شوجا وحوليه هي نذر أيام قلي إن نصدق الشخص صومه iyadoo aanan wali 3 cisho soominaya bishii Ramadaan ay soo gashay marka Ramadaantii kadib dhowr cisho ayaan soomay buu leeyahay oo aan bilaabay marka waxaan horsoomayaa buu leeyahay 3dii nidarka ahaa mise waxaan horsoomayaa qalihii Ramadaan wuxuu leeyahay qalla la igu yeeshay dabeetana maqalihii baan soomayaa mise nidarkii baan horeysiinayaa su'aasha labaad gabadha ayaa soo qortay xilada sheekh rubadka ayaa inta badan xanuuna waqtiga ramadaantii horena waxa la igu lahaa 15 cisho oo ma aanan soomin markastoo israahdo soonna xanuunkaasi uu igu yimaada dhakhtarradina waxay ii sheegeen in negative ahay oo aan waxba la igu lahayn waxba aanay haynin marka 5 cishaan 15kii ka soomay 10 ka soo haray fidiyo ma bixin karaa bay leedahay su'aasha saddexaad waxa uu leeyahay sheekh wadna xanuun ayaan leeyahay marka aniga oo sooman hadii wadnuhu ay xanuuno miyaan afuraya dhinaca kale waxa uu leeyahay maalmaha kamid aniga oo sooman ayaan dhacay dabeetana ardaydii jaamacadda ila dhiganaysan ogeyn inaan soomanahay ayaa waxa ay siiyeen biyo marka miyay iga jibinaysaa soonkaygii buu leeyahay su'aasha afraad gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabadh uur leh waana ilmihii koobaad oo ugu bayaanahay ilmuhuna waa 7 bilood sida awgeed kursi ayaan ka tukadaa bay leedahay culayska ilmahaas awgii marka ilaahay ka raali hada sheekh diintu maxay arrinkaasi ka qabtaa su'aasha ugu dambaysa waxay leeyahay saa'ilkani waxa aan maqlay in marka la ducaysanayo aan la raacin karin ereyga insha Allah marka maxay tahay talow sababtu qofku isagoo ducaysanaya ma oran kara ilaahu waxa isi insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد سؤال شهرية نذرك يا رمضان كيف له الرئيسينية رمضان بل له الرئيسينية وقت كان عبادتنا وعبادة مضيقة ولا وليست موسعة ما هم وقت يدو وحول بأقبل كره صومك كليه بشهر رمضان يقبل يسا ورمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القاسي آخر ذي لها وحلو فمن شهد منكم الشهر فليصم رمضان بلو صومي كرا كدي من النذر كاسات آيات صومي دونتا مرك رمضان لقبحه الله هي النذر كهدي الله يدعنا لبضا كاتونتا الرئيسين كرتا قلوهنا دق maaha nadarkuna waad horeysin kartaa waana dibdhigi kartaa laakiin waxaynu ka hadlaynaa war Ramadaanta waqtigeedu joogay marka labada su'aalood kale waxay la xiriiraan bukaanka iyo Ramadaanta qofka bukaanka ahi haduu soomi kari waayo uu iska cunaya maradu buko Ramadaantuna soomkuna dhibayo uu iska cunaya uu iska afuraya sida quraanka bay ilaahay ku cadeeyay subhanahu wa ta'ala waanu soo qalaynaya intii maalmood Ramadaan ka tagta in leeg hadii ay u suuroobi weydo inuu soomo Ramadaan qalihiina u suuroobi waayo cudurka daraadi raashin buu bixinaya maalintii walba 1 kiilo 30 cisho 30 kiilo 29 cisho 29 kiilo saasuu wadaya marka bukaan la rajeynaya inuu ka bogsado
iyo bukaan aan la rajaynayn inuu ka bogsado labadaasunbaa loo kala qaadaa ka xanuunkaagu yahayna adigaa sheegi ama rubadku ha ku xanuunayo ama wadnuhu ha ku xanuunayo labadaa midunbaad gelaysa adigiyo dhakhtarku markaa isla eegtaan ama qallaa kuu suuroobiyo waad soo qallayn haddii soomkii wakhtigiisu la joogay iyo qallihii midna suuroobi waayo raashinkaa loo guuraya qofku hadduu ku tukan kari waayo fadhiga ama uur ha lahaado ama jilbuhu ha xanuunayaan ama dhibaata ha haysato wuu iskaga tukan karaa fadhiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cimraan ibnu xusein asxaabigaa la yidhaha buu u jawaabayoo sarajooga ku tukabu haddaad kari weyda fadhiga haddaad kari weyda jiifka fattaquu llaaha ma stadactum adigoon waxba ha karanaynin kolba sidii aad kari kartaa baad ilaahay ku caabudaysa laguna kalifi maayo ducada iyo mashiicada la isma raaciyo ilaahayo waxaa isti haddaad doonto waa la diiday oo rasuulkaa diiday sala allahu calayhi wasalam min aadaabi ducaa aljasm ducada aadaabteeda waxaa ka mid a inay go-aan ahaato haddaad doontana go-aan kuma jiro hadduu dooni waayo maxaad qaadi kartaa ila ilaahayow haddaad doonto iga aqbal baad tiri hadduu dooni waayo meel kale oo aad u kacdo iyo cid kaleood ilaahay ku bedelata miyaad haysaa marka aadaabta ducada kama mid ahaa in shaa allahu in la yidhaahdo ilaa in shaa allahu macnaheedu waxa weeye haddaad doonto xataa haddii ay tabarugtood barakaysanaysa waad ka daynaysa maadaamuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat الshaykh qeybta labaad ee su-aalaha su-aashan koobaad gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh anigoo aan daahir ahayn qur-aanka dusha ma ka akhriyi karaa ama ma dhegaysan karaa talabaad aayadaha adkaarta ku jira sida adkaarta subaxii la akhriyo iyo aayatulkursiga oo kale saas oo kale ku jira iyaga ma akhriyi karaa bay gabadhaasi leedahay su-aasha labaad ardayad baa soo qortay waxay leedahay sheekh markaanu aqoonta ku tartamayna casharada dugsiga ee nalooga baahan yahay degdega ma soo gaabsan karaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam marka aan qorayo anigoo xarafka saad keliya usoo gaabinaya ma soo kaabin karaa ayay leedahay su-aasha ku xigtaa nin ayaa soo qoray waxa uu leeyahay sheekh waxaan ku noolahay dalalka galbeedka waxaana meesha aan deganahay aada ugu badan kiniisadaha iyo meelaha ay gaaladu ku cibaadaystaan haddii aan galo kiniisad diintayda miyay wax ka soo gaadhayaan anigoo doonaya inaan soo daawado iyo waxyaabaha la midka ah su-aasha ku xigta saa-iilkani waxa uu leeyahay sheekh sidoo kale waxaan deganahay dalalka galbeedka waxaan asxaab la ahay dad badan oo aan muslimiin ahayn marka xafladaha ciidda gaalada ma ka qayb geli karaa haddii saaxiibadayda gaarka ah ay igu soo marti qaadaan su-aasha qeybtan ugu dambaysa saa-iilkani waxa uu leeyahay sheekh qurbaha ayaan deganahay halkan badi dumarka soomaalida ee ku nooli buu leeyahay sanka ayay dalooshadaan markaa weydiinteedu waxay tahay qofka dumari inay sankeeda dalooliso ma bannaan tahay bismi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilah ruuxa dumarihii markaanay daahir ahayn ama qofkuba dee uu jinaabo qabo mas'ala khilaafiya weeye waa masale ay culimadu isku khilaafeen qur-aanka kariimkaa inuu akhriyi kara iyo in kale laakina jumhuur culamaa calaa khilaafi culimadu intooda badani waxay qabaan calaa an laa yaqra' inaanu qofkii qur-aankii akhriyin kitaabkiina taabanin sidaa daraaddeed waxaynu leenahay dee baahi adagoo kuu qabata mooyaane sida adigoo imtixaan ku jira ama qofkii qur-aankii ilaawayo xaaladaha mooyaane inuu qofku iska daayaa wanaagsan dikriga kii u qaalisanaa weeye qur-aanku layskumana khilaafsana dikriga inay wanaagsan tahay marka uu qofku daahir yahay sidaa daraaddeed dahaaradaad la eegan insha allah kolka rasuulka sala allahu calayh wasalam magaciisa lasoo qaado waa in lagu saliyaa sala allahu calayhi wasalam taasi waa markii dee afka laga dhawaaqayo laakiin markay qoraal noqoto miyaa la dhammaystirayaa mise waa lasoo gaabsan karaa sida fiicani waa in la dhammaystira bay leeyihin culimadu ikhtisaarkuna wuu iska bannaan yahay inaad soo gaabiso saad ku soo gaabiso siduu imaamu axmed samayn jiray raximah ullah laakiin waxaa ka fiican in la dhammaystiro kaniisadda inaad iska daysaa wanaagsan
haddaad gelaysana dadka ku jira inaad hanuunisood wax u sheegto ayuunbaad u geli kartaa laakiin inaad dalxiisto iyo inaad daadaawato waaba intay ku jiidataaba oo wax naftooda soo jiitaa oo ama lagu xayeysiinayo ay meesha ka jiraan ama lagaa qaniinaba intuba suuragal marka inaad iska daysoona tegin ayaa wanaagsan ama aan diintaadu laakiin waxba noqon mayso kale haddaanu qof gaaloobin oo aanu ku tukanayn diintiisu waxba noqon mayso laakiin daawashadeedu sax maaha inaad iska dayso weeye inaad ciidaha gaalada kala qayb gasho iyo inaad la saaxiibto gaalkii labadubana waxay kuu jiidi karaan gaalnimo xaaraan weeye ciidaha gaalnimada in laga qayb galo waayo ictiraaf bay sheegaysa inaad aqoonsatay oo aada ictiraaftay wax baatil ah shay baatil ah oo aan jirin inaad ictiraaftood aqoonsatay ayay sheegaysa marka inaad iskaga beretin noqoto wey sidaa daraaddeed baa culimaduna aada uga digi jireen waidaa maruu bilagwi maruu kiraama wixii xun markay soo maraan way dhaafaan ee kama qayb qaataan iyo wixii bilaa macno ah wax macsiyaana iska daabaan qofka gaalkaa la saaxiibistiisuna khatar bay leedahay rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu leeyay almaru calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalib qofku diinta saaxiibkiibuu haystaaye qof walooba ka fiirsa cidaad la saaxiibayso dhibco kugu dhibqinayaa marka dambe wixii sucaadi bay kula noqonaya inaad raacdaana waa laga yaabaaba sankoo la dalooshada ma bannaana waayo wejiga wuxuu diiday nebigu in lagu ciyaaro xataa xoolahan laga sunti karin dadkuna inuu dalooshado iska daa marka waa dhaqamada hinduuska iyo hindida bariga ee dabcaabudka ah soomaaliduna wixii arkaanba waxay isaga qaataan inuu yahay ilbaxnimo walow gaalnimoba ha ahaadee saa daraaddeed la daloolin maayo waa inay dumarku ka fogaadaan oo iska ilaaliyaan wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat sheikh qeybta ugu dambeysa ee su-aalaha su-aal baa jirtay maalmahan soo noqnoqonaysay oo maalintii sabtida waxaa dhacday in eedaankii salaada maqhrib dadka qaar ay eedaameen wakti ka horeeya waktigii ay ahayd in la eedaamo sidaa awgeedna dad badani ay ku qaldameen oo ay markaa ku afureen markaa sheekh dadkii afuray soonkoodii muxuu noqonayaa qofka muadinka ah ee ammaanadii ilaalin waayeyna isagana maxaa laga yeelayaa su-aasha ku xigta gabadh baa soo qortay waxay leedahay sheekh hooyadii waxay ii bixisay yurub aniguna markii aan ogaaday in waddamada gaalada magacaa la yidhaahdo waan iska bedelay oo hodan ayaan la baxay reerkii markaa aan ka dhashay waxa aan u sheegay inay iga daayaan magacaas markaan la joogo waxay inta badan iigu yeedhaan bay tiri hodan balse markaan ka maqanahay waxay ii yaqaanaan yurub marka su-aashaydu waxay tihi horte marka hore xaq ma u leeyahay inaan magaca iska bedelo waa kow waa marka labaad ee qofkii magacaa iigu yeedha aan diidanahay muxuu noqonayaa su-aasha labaad ee saddexaad gabadhan ninbaa waxa uu leeyahay xaaskaygii 2 goor ayaan iyadoo uur la furay haddana mar saddexaad baan furay markaa ma laga yaabaa buu leeyahay sheekh in qiil lay helo sababtoo ah reerkayga waan jeclahay shaydaan ayaana soo kala dhex galay markaa 2 goor ee uurka furniinkii sax ma yahay mise markaa waa layga dhaafayaa buu leeyahay su-aasha afraad gabadh ayaa waxay leedahay fadiilata sheekh nin baanu muddo dheer sheekaysanaynay markii dambena wuxuu igu yihi waxba gacanta kuma hayo ee aynu ismeherxadno oo aynu si hoose isu sii mehersanno kadibna markii la gaadhay wakti ee aan ku idhi dee reerihii aynu sheegno wuxuu igu yidhi runtii anugu kumaan odhan sheeg ee qarsoodigaasaynu ku wadaynaa raggaygii markaan u sheegayna wuxuu ku yidhi anu gabadhaa garanba maayo sidaa awgeed waxay leedahay maadaama oo dee meher dhacay miyaan ninkii meher ku leeyahay furiinna ma ka dalban karaa su-aasha ugu dambaysaa gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabadh shaqaale caafimaada waxaanan ka shaqeeyaa cusbitaallada mid ka mid ah dadka aan u shaqeeyo waxaa ka mida bay leedahay rag marka haddii anigoo weyse qabaa nin aan u shaqaynayo ama aan dhiiggiisa cabirayo gacantiisa aan taabto weysadu ma iga jabaysaa sidoo kalena hooyo umulaysaa haddii aan caawiyo anigoo golofis xidhan oo dhiiggeedii soo gaadho sida oo kale weysadii ma iga jabaysaa بسم الله الحمد لله مغربك مغربك هدي وقتgiisii laga horeysiyo afurkana waqtigiisii laga horeysiyo labaduba waa qalle
salaadii maqriba waqtigeedii aan la gaadhin oo la tukaday waa qalle maalinka isagoo aan dhammaystirmin qoraxdu soo jeeda la cunayna waa qalle qofka adaamay iyadoo waqtigii la gaadhinna dee waa dembiile leanna ammaanadii muu gudanin ila rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay qofka mu-aadinki inuu yahay mu'taman qof la aaminay markaa waxbuu khiyaamay waa khaa'in khiyaamo diineed buu sameeyey qofkuna hadduu khiyaamo sameeyo xeer wuxuu xeer u leeyahay ama abaalmarin u leeyahay ciqaab ayuu leeyahay fawdada ayna haysatuun bay ka mid tahay fawdadu dhinacyo badan bay naga haysataa iyo nidaam xumadu xagga diintuna waa ka mid marka u horreeyaba fawdada waxay ka jirtaa qof aan mas-uuliyaddin qaadi karin oo loo dhiibayo adaanka axkaamtiisii ma yaqaan waa laga yaabaa kontomeeye inay adaanka axkaamtiisu ka badanta ma garanayo imaamnimo ma garanayo reer hebel baa loogu dhibay masaajidka dee inuu reer hebel u yeedhayaa unbuu markaa u egaaday waa kaa ku yeedhiyey qoraxdiiba soo jeeda adaamay markaa masaajidada dadka ama imaam looga dhigaya ama mu-adin looga dhigaya ka dhisayna wuu ku dambaabaya cid aan helayn hadduu u dhiibo kanina hadduu dadkii afuriyo waa ku dambaabay in la dabagalo oo lala xisaabtamo oo meeshii laga eriyana wey si aanu dib ugu noqonin waanay dhacdaa taasina waxa keenaya inay soo noqnoqoto waa waxqabad la-aanta waxqabad la-aanta jihooyinka ay khusayso ama cidda masaajidka ka mas-uula ama wasaaraddii ka mas-uulhaydoo waajibkoodii gudan waayey ayaa kalifaya dadkuna way soo qallaynayaan inantaa sheegtay in yurub lo odhan jiray iska beddeshay way ku hagaagsantay magac kastoo xun qofku uu iska bedeli karaa siduu rasuulkuba uga bedelayay sala allahu calayh wasalam rag iyo dumarba asxaabtiisi wixii magaciisa uu garan waayo uu ka bedeli jiray nebigu qofkuna isaga xaqula magaciisa inuu bedelo dadku haddii ay kugu yeedhaanna dee way fiicayn hadday kugu yeedhi waayana way qaldayn weliba magacaad diidayso ama xun haddii lagugu yeedhana qaybaha xanta ayay ka mid noqonaysa alqiibatu dikruka akhaaka bimaa yakrah xan waxaa la yidhaha walaalkaa ood ugu yeedho qofkii muslimkaad ugu yeedho wuxuu diidayo markaa adigu doorkaagii waad qaadatay iyagana kula tali inay kaa daayaan ninka sheegay xaaskiisii inuu furay mar labaadna furay mar saddexaadna furay iyadoo uur leh saddexda dalqadoodba way dhacayaan waayo gabadhu markay ku jirto ciddo haddii mar labaad la furo wuu haleelayaa dalaaqu mar saddexaad haddii la furana wuu ka daba tegayaa kol haddii dalaaqu aanu mar keli ahayn ee uu kala googo-an yahay gabadh la furay oo ciddo tirsanaysa dalqadu ma ku dhacaysaa haway ku dhacaysa oo waxay leedahay xukumkii ooridoo kale markaa way kaa dhammaadeen bay ka dhigantay saddexdaa dalqadoodba gabadhaa sheegaysa inay iyada iyo ninku ismeherxadeen meherkaa la xaday ma jiro laakiin haddana marka aad doonayso inaad nin kala guursato ama ka madax bannaanaato laabudda min waraqati tafriiq warqad idin kala kaxaysaa waa inay jirto ama isagu kuu qoro ama qaadigu kuu qoro laakiin iskama guursan karaysid ilaa waxaan marka horeba guur baad u aaminsanayd waana ku wada socoteen meher waad ku yeelanaysaa haddii uu wax kuu magacaabay ama galma jirto inantaa kale ee sheegaysa inay u shaqaynayso iyadoo fiilka caafimaadka ama caafimaadka ka shaqaynaysa ragga u shaqaynayso ee ragga taataabanayso waxa kuu fiican dumarku inaad ka shaqayso ragga waxaad ka shaqayn kartaa haddii la waayey rag kaloo u shaqeeya innagana waa la helayaa oo way badan tahay in iyadoo la heli karaya ninka u shaqeeya inay hablo loo diro waa isxariifinta waxay ka mid tahay iyo maaragtay gaalo ku-dayashadii xasay ka mid tahay iyadoo inamadii neeraska halkan joogaan ayaa hablo neerasta ragga loo diraya inamadiina dumar baa loo diraya taasi sax maaha waa qalad waana gaf weeye qofku kolka uu qof kaloo ka ajinabiya ama cawradiisu ka xaaraanta eegi karaa waa marka jinsigiisii loo waayo su-aasheeda kale ah haddii aan taabto xubinkaa tarankee qofkii aan ka dhalinaya anoo golofis gashan waysadu miyay iga buraysaa maya kol haddaad golofiskii gashan tahay oo wax kaa xiga kaama burayso wallahu aclam jazaaka allahu khayran intaasaynu kusoo gabagabeynaynaa su-aalihii maanta oo uu sheekh maxamed sheekh cumar diri inooga jawaabay ilaahay subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro ciddii su-aal haysaa waxaan ka codsan lahayn wakhtiga maqhribka inta ka horeysa inay imaamka runtii soo gaadhsiiyaan sidaa iyo kulanka berri ayaynu markaa ku kulmi doonaa wassalaamu calaykum waraxmat ullah قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب
نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب